habeenka ugu horeeya Ramadaan suuradan qofka aqriya in sanadka dhamaan Ilaahay dib oo dhan ka xafidayo Ilaahay waardiyo uu sameeyo qofka marka aqriya habeenkan haduu dulaysan yahay Ilaahay aziis buu ka dhigaa haduu dulma yahay Ilaahay dulmiga ayuu ka dulqaadaa haduu faqri yahay Ilaahay faqrigu ka qaadaa haduu xanuunsan yahay Ilaahay xanuunku ka qaadaa hadii culays kala saaran yahay Ilaahay fudayd buu siiyaa hadii cadow uu ceyrsan Ilaahay waa uga gargaaraa baab kastaba ma sha Allah nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam suuradan wuxuu ku tilmaamay in dunida waxa yaalo dhan ugu jecel yahay waa suurad gargaar ah oo fatxi ah oo degdeg albaabada Ilaahay adag kuugu furayo kuugu jilcinayo saddex jeer caawa ku bilow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahweynta barakaysan ee ku xiran badbaada channel meel kasta joogtaan bay Ilaahay idin xafido ramadaan wanaagsan ramadaan kariim baa idin leeyahay idaylkeen walaalaha sharafta leh dunidan iyo caalamkan meel aad uga sugantiinba Ilaahay kuwa ka faa'iideysta acmaashooda iyo ducadooda iyo khayraadkooda la aqbalana naga yeel aamiin ya rabbal caalamiin waxaan rabaa casharka kan si degdeg ah in ay idin soo gaarsiiyo adinkuna u gaarsiisaan waa amaana luquntiina saarane walaalaha kale oo aad share garaysaan like-tana ku taageertid Ilaahay ramadaanka ka aqbale waxa weeye suurada ugu muhiimsan ee habeenka ugu horeeya ee Ramadaan aad akhrisanaysid oo dhammaan albaabada ka xiran aad isleedahay damba kaaga xiran Ilaahay ku furayo arrimaha culayskana Ilaahay ku fududeynayo sanadka dhamaantiis maahan bishan Ramadaan oo kaliya sanadka dhamaantiis suuradaas ay idin sida miisaankaas la walaalayaal Ramadaanka habeenka ugu horeeyaan ku bilaabayno walaalaha kale adinkuna sii shargareeyay biidnillah nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam suuradan wuxuu ku tilmaamay in dunida waxa yaalo dhan ugu jecel yahay waa xaalad culus waqti ay ku sugnaayeen asaga iyo saxaabadiisa ay soo degtay waa suurad madani ah qorraxdu waxay u soo baxdo ayadan ugu jecelahay rasuulka Ilaahay alayhi salatu wasalaam dagaalkii Xudaybiya la oran jiray sanadkii 6aad ee hijriga dhacay heshiiskii Quraysh Nabi Muhammad la galay kadib markuu ka soo noqday ayaa suuradan soo degtay qof kastoo siirada iyo taariikhda xoogaa aqoon ku leh iyo galgalna waa u fahmayaa qadiyadaas Xudaybiya aadka qaraarka u ahayd waa xilli saxaabadu murugasanaayeen oo ay niyad jabeen aaminsanaayeen in muslimiinta la hoojiyay heshiiska dartiis waa xilli Umar uu xanaaqay oo Nabi Muhammad isagoo xanaaqsan intuu yimid wuxuu rasuulka Ilaahay xaq soo kuma taagnin cadowgana soo baadil kuma taagna maxaa isu duleynayna ana heshiiskaas u qaateen qaarkood in duleyn ay tahay markaas Nabi Muhammad wuxuu yiri amarka Ilaahay baan ku shaqeynayaa Umar oo kaadi sidii baan Ilaahay ku tilmaamay in heshiiskaas furasho ahaa sanadkii 6aad wax yar haddaan dib ku xasuusiyo Nabi Muhammad baa ka soo safray Madiina lug maahan sidaan diyaaradahan iyo gawaaridan iyo laamigan qarfa cidla buuro 100 kilomitir buu soo jiray magaalada Makka markuu u soo jiro 20 iyo dhowr kilomitir bay Quraysh waxay tiri no ma soo gali kartid cimruna u socda sagay saxaabadiis dagaal buu ma socon waxay dheen meesha ma soo galisay waa inaad dib u noqotaa 100 kilomitir dib ugu noqotaa la hawla wala quwwata illa billah wa khayru khalqillah xaalad culus markii dambe rasuulka Ilaahay markuu beecada la galay saxaabadiisa beecatu ridwaan oo inay dhimanayaan oo maanta cadawga Quraysh iska dhicinayaan ku ballameen ayaa markii dambe Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasri kala keenay heshiis bay galeen saxaabadii iyo rasuulka Ilaahay wada jiray Quraysh heshiis bay wada galeen heshiiska maxaa kamid ah mataqaana waxa kamid ah ninka ayaga ka yimaado oo soo muslima oo Nabi Muhammad u yimaado Madiina yimaado in asagoo xirxiran la soo celinayo gaalada lagu celinayo waxa kamid ah heshiiska ninkii Nabi Muhammad xaqiisa ka yimaado kuwan Quraysh u tago ku biira inaan la soo celinay heshiis qaraar way xadiiska Sahih Bukhari ku yaala sayradana waa qofka akhriya yani markii daahirka afiirisid waa aad buu qaraar u yahay laakiin Ilaahay wuxuu yiri inna fatahna laka fathan mubina furashu baahaba suuratul fath way waxaan ka hadlayo marka saxaabada Nabi Muhammad ku soo noqday oo ay amar diida sameeyeen in badan oo kamid ah waa xilliga xataa Salama rasuulka Ilaahay maxaa kugu dhacay markuu soo galay teendhadeed markaas wuxuu yiri maxaa kugu dhacay maxay tahay amar baan bixiyay saxaabadii waana intooda badan ma qaadanba rasuulka Ilaahay murugooday markaas rasuulka Ilaahay iska daa hadalkooda iyo warkooda ismurjin meeshaas marka lagu xalaalo umradii la iskaga furay neefkaada qal timahaada xiro meeshaada ku xalaalo ayaga marka ay ku arkaan ficilka markaad sameysay
samaynaye haweenada taladeedii buu qaatay xaaskiisa wuuna ku guuleystay markuu ficilka galay dhamaantu waxay dhaheen wallahi haddaan dhowrano cadaab baa nagu soo degayaba marka suuradan soo degtay ayaa nabi maxamed u tagay saxaabadu wuxuu yiri waxay igu soo degtay aayad riwaayad kalena suurad baa igu soo degtay adduunkan u jecelahay markaas waxay rasuulka ilaahay maxay tahay xaalad murugsan madaxa la isku jira مركز النبي محمد سورة أخري إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا انت مركو أخري رسولك الله عليه الصلاة والسلام إلى لقال هو الذي أنزل سكينته بحين رسولك الله وحي إلهي أديك كوكو سميو هوشي وكوشي غي دجنتي وحو إلهي كوبا لنقاده وارقنا آياتها سأنك محونا نقو سمي آيات كدما جاسو دكتي ليدخل المؤمنين والمؤمنات سورة دبا فيراد وسورة مدنية لباطني سقال آياتها سورة فير الله أكبر هل كبا إلهي فردامي هوشي سورة دينا وحاولكم مقعابي سورة الفتح والنصر يقرقر qofka marka akhriya habeenkan haduu dulaysan yahay ilaahay aziz buu ka dhigaa hadii dulma yahayna ilaahay dulmiga ayuu ka dulqaadaa haduu faqri yahayna ilaahay faqrigu ka qaadaa haduu xanuunsan yahay ilaahay xanuunku ka qaadaa hadii culays kala saaran yahay ilaahay fudayd buu siiyaa hadii cadow uu cayrsan ilaahay waa uga gargaaraa باب كستبا ما شاء الله حالة حن أي كسقنايين مركا أي آيات سو دكتي إمام كيلورين شري إمام المسعودي وعالم تابعي وحال يرادا ضدكي صحابة أركي مسلمين تي صحابة أركي الله نولا أي تابعي ليرادا لأن جيل ككورة يا صحابة ليرادا وأن منكي رسولك لا أركي الله نولا دي الروميي كل انت سدا صحابة ليرادا كو صحابة أركي والنبي أركي نم حال يرادا تابعي إيقا مركا كلا الدرجة سي صحابة ودرجة وكلا ليين تابعي عالم وي wuxuu yiri waxa ay soo gaartay dabcan saxaabada ka soo gaartay waxa ay soo gaartay habeenka ugu horeeya Ramadaan suuradan qofka aqriya in sanadka dhamaan Ilaahay dib oo dhan ka xafidayo Ilaahay waardiyo uu sameeyo sanadkee 1400 iyo 43 ayanu marayna hijriga ميلادنا محمد الله كون يلواتن يلبض إلهي سنة كانوا دم كحفظية ريم مدينة مقالة الرسول كإلهي دتك كون ولا علماء دو حل جوريي إن صلاة دا أي كفر فرنشرين يعني تراويح دا الغفر فرية ماشى جزء القرآن كلا قبل أبي بقرة لقى برابي مركور إن فتح بكفر فرنية كدب باوح وقون ضيسنا راعي جرين صلاة السنة دا قفك كتو كده ما شاء الله قفك جار واخيرا ما شاء الله دتك أهل الله وأهل المعرفة والزاهدين تقاركود وحل جوري التابعين له قفك السدح شر أخرية صورة دان إلهي ونلشي سوء واسعية هبينك وجوه الرية رمضان سنة كيساس أردنا كمبحو برواقو فرحاد ينلشو إني أوصي واسع نقنيس وبركويس وصورة جرجار أو فتح أو دق الباب بدأ إلهي أذك وغفريوك وغتشلعنيو هذا الكا حتى إمام المسعودي وحاشا عالمك فقيها أي شافعي كم لها علماء شرح ذي كتابك منهاجك خطيب وشربيني كتاب كيزا تفسيرك سورة أمركم مري مركا وأرهن عجيبة وصالحين إلهي إيا عارفين ربي إيا علماء إيا أهل فقهي أما التابعين هلا هذين أما أتباع ذي هلا هذين أما كوك الدنبية هالنقدين الله هيوي سورة حلي جاي سود دكتي markaad fiirisid aad fahmaysid macnaha ay ka waramayso iyo baabkay ku saabsan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqda hana waafajiyo dambigeennana ha dhaafo saddex jeer caawa ku bilow hadii dadka biriso habeen dambe soomayo axad soomayo aad ka mid tahayna habeen dambe ku bilow markuu Ramadaan saa kuugu bilaamay adiga habeenka ugu horeeyo saddex jeer akhri suuratul fath culaysi ciriiri murugaya qalbi jab mushkilad iyo dhibaato haday qorto ku soo tahay Ilaahay baa ka furfuraya رمضان كان واحد كله بلا بنيسا فرحد يريرين إن شاء الله تعالى إلهي هيدا بركة مراد كنا هيدين سهل التوفيق دنا هيدا وافجي عليس دنا عنا قد القاضي ولا لها كلا أشي شهر جرية وقفر حياة مسلمين رمضان كان سينا الله جرية أدينكو كوصل لنا نبي محمدنا كومنتيجا كسوديبت جزاكم الله خيرا.